hadday isu tagaan oo rabaan inay ku anfacaan kuguma anfici karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane hadday isu wada tagaan oo rabaan inay ku dhibaanna kuguma dhibi karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane waataynu aayadda hadda soo akhrinaynay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wixii balaayaba dhacaba ilaahay yidhi horaan u qoray waana ilaahay agtiisa wax ka fudud maxaa sidaa loo yeelay likay laa ta'saw calaa maa faatakum baa ilaahay leeyahy si aydan uga murugoonin oo uga warwarin oo uga walbahaarin wixii idin dhaafay walaa tafraxuu bimaa aataakum sidaydan ugu kibrin oo u qooqin wixii uu idin siiyo hadduu ku siiyana inaad aayar ilaahay u mahad celiso waanad qooqin berriba way lumi kartaaye haddaad weydana inaad waxba murugoonin waad tidhaahdaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal walaalnimo iyo jacayl dad baa isku waayay oo walaacayee innagu wadkaan iska dhowrannaa walaal aan jecelaho waxaan ku nastaa agtaada waxweyntaadaan necbahay waxaan gudo waa taqaan waxaad geshid baan ogahay waxaad ii tahay walaal waxyeellada iga jiro waxsiintaydana ku lada idin siiyo dhammaantiin ilaahay khayr na siiyo ducada maxaan ku keenay yaa waxaan nahay dad maalin kasta sor fadhiyo maxabbe iyo galgaceel isu qobaan nahay marka ilaahay dhammaantiin khayr hana wada siiyo way iga soo go'day way iga soo go'day inaa idin duceeyo isuna ducayno dhammaanteen weliba dhallinyaraan u badan nahay ilaahay waxaan jecel nahay yaa ilaahay hana siiyo rajooyinaa nugu jira wax badan baa nugu jira waxaweyaan baryada ilaahay laakiin aan badin weydiisan waa ku siinaya bini aadan haddaad laba maalin ku laabato wuxuu ku leeyahay wararkan igadaa taleefka ma qabanaya baryada ilaahay ilaahay baryadiisa aan badino cibaadadana aan xooga saarno talooyinkeena ilaahay aan u dadka laabtoodu caafimaad qabta nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kooxda ugu horraysa ee jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14aad dayaxoo ah ayay u galaan kooxda ku xigtaa buu nebigu yidhi xiddiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda